السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا وناكسن داوديال إذن هانتين بميل كستود عالم كاي نجا داونيسان كسر دوادا ورك تي في عالمي جاه كالسن أو هاتن ستة سيدين كجيمانية استوديوجا قلبت كمجلة لندن. ورك وحى سود ديارنا إنه إذن السعودية يعني جواه عبد الرزاق سولي عليه ورك الناس هاتن وحى وجدور كرون حركة الشباب آيات توجشكوا فليه شن روح أي كل شيئين inay jawaasaas u ahaayeen dawladaha kala ah Kenya iyo Ethiopia. Gudoomiyaha baarlamaanka aqalka sare ee Soomaaliya ayaa ugu baaqay shacbiga Soomaaliyeed iyo waliba dawladdu inay iska kaashtaan boobka ay dalka Kenya ku hayso badda Soomaaliya iyo waliba bariga. Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka hore ee Soomaaliya ayaa sheegay inay sharci darro ku joogaan ciidamada ilaaliya markaasi safaaradaha oo markaasi aysan u soo marin wax sharci ah. daawadayaal wararkaasi waxay ahaayeen qodobada haatan ugu doorka roon balse haatan waxaad ku soo dhawaataan iyagiyo fidsan. gudoomiyaha baarlamaanka aqalka sare ayaa ku baaqay in dawladda Soomaaliya iyo waliba shacbigeeduba ay si wada jira uga hor yimaadeen boobka ay dawladda Kenya ku hayso dhulka iyo waliba badda Soomaaliya. warbixin umuurta ku saabsanna waxa inoo soo diray wariyahayaga Cabdiraxmaan Kampala. kalfadhiga labaad kulankiisii 23aad ee aqalka sare baarlamaanka Soomaaliya ay ku yeesheen maanta magaalada Muqdisho ayaa waxa warbixin looga dhageystay qaar ka mid ah xildhibaanada ka tirsan aqalka sare ee kormeerka ku tagay xuduudda ay wadaagaan Soomaaliya iyo Kenya halkaas oo dawladda Kenya la sheegay inay darbi ka dhisayso. Senator Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag oo ka mid ah wafuudi booqatay xuduudda u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya ayaa faahfaahin ka bixiyay waxyaabaha indhihiisu ku soo arkay. xuduudda saddex geesoodka ah ee u dhaxaysa Soomaaliya, Kenya iyo Ethiopia oo loo yaqaan BB1 waa meesha saddex geesood isku yimaadaan inta dal dhisto Ethiopia, inta dal dhisto Kenya, inta dal dhisto Soomaaliya. meesha iyada waxaa laga bilaabay waxa la yidhaahdo silig ka samaysan siligkaas oo ku leeyahay tiir ama rukumo ka samaysan shub oo si sahal ah wada xiriir kara lagu jeedo. meesha dhagaxaas ama kuurkaas sida loo sheegay waxaa ku heshiiyey sidoo kale gudoonka aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa waxa uu tilmaamay in loo baahan yahay in lagu daydo shacabka reer Beled Xaawo dawladda Soomaaliya iyo shacabkeedaba ay ka hortagaan xuduud beenaadka dawladda Kenya ay ka dhisayso xuduudda ay wadaagaan labada dal. Kenya xuduudda sidoo kale xaqiiqiyay dadkii la cabiyo sidoo dadkuna loo baaxdo waxa keenaysa mid ويجي دم على شيء كي يرجع وحدود دم بريا إسلام سوق الوريسو سوي نوشة نيل تبدا سنتر بمثلا أيوه بعد الأخير سيء كاريس كاسنا معها من أين أفضل كرنو وأين قارن كرنو وحسوا عنها دولته أما دولة أنا دولة كحامة يشير كسومالي سيدة مدى شيء كبير حاله أي يسوتاله اللي يسوتاله وأهلنا لا أبران إلا اللي يحيو ويلغاني عليه مال أيكون قاسي كل حدود يسوتوسا بدأ العبد له أيوة بدأ. ugu dambeyn ayaa gudoonka aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya waxa uu soo xiray kalfadhiga labaad ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya asagoo ku dhawaaqay in kalfadhiga labaad ee aqalka sare uu xiran yahay. Cabdiraxmaan Macalin Maxamed Kampala, Kalsan TV, Muqdisho. madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Mudane Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa daahfuray suuqa magaalada Gaalkacyo iyadoo suuqaasi oo hakad ku jiray maalmihii la soo dhaafay. khilaafaad u dhaxeeya ganacsatada ka soo jeeda maamul goboleedka Puntland iyo waliba Galmudug. haddaba warbixin umuurta ku saabsan waxa inoo eegaya wariyahayaga
xasan cabdiraxmaan. suuqa magaalada gaalkacyo oo dhowr mar ku xirmay dagaalo u dhaxeeya ganacsatada labada dhinac ee Puntland iyo Galmudug ayaa waxaa maanta soo gaaray madaxweynaha Puntland Cabduuli Maxamed Cali Gaas ayaa socdaal ku soo maray qeybaha kala duwan ee suuqa. madaxweynaha ayaa isagu gacantiisa ku qaaday jawaano lagu cabeeyay carro taasoo ku xeyndaabnaa qeybo ka mid ah jidadka muhiimka ah ee suuqa soo gala. ugu horeyntii waxaa la hadlay saxaafadda gudoomiyaasha gobolka Mudug Cabdishiid Xaashi Cartan iyo sidoo kale Xasan Maxamed Khaliif. waxa meesha socdaala maanta loogu sareeyaa oo amarka bixinaya labada jaran wuxuu inay soo noqdaan inay wacnaa hadalka waxa u leeyahay dadweynaha inay ogaadaan maamuladii heer degmo heer gobol laamihii amniga madaxweynihii dhamaa in maanta loo diibo sidaa daraadeed marka waxaan leeyahay intaas waa fariin guud waxaan u hambaleynayaa madaxweyne Gaas professorka sida uu ilaa xalay ilaa maanta ilaa waqtiga uu gelinayay dadaalka deegaankan uu garanaya macnaha uu ku fadhiyo waxaan leeyahay marka dadweynuhu aan ka wada faa'iideysano anaga maamulada waxaan diyaar u nahay awaamirta dowliga inaan wada qaadano oo wada shaqeyno oo shacbiga u adeego aad iyo aad baan u mahadsantahay madaxweyne sidoo kale waxaan rabaa inaan mahad ballaaran u jeediyo laamaha amniga gaar ahaan biliiska iyo milatariga jannabada meesha taagan oo waqti badan ku bixiyay ayagana waxaan rajaynaynaa oo sidoo kale ugu mahad celinaynaa dadka waxgaradka ah odayaasha sida boqor imaan xamar ka soo gurmaday ragga la midka iyo dadka isha aan qabanaynin oo ilaahay dartii u shaqeynayo aan garan karnay ilaa saaka nala shaqeynay idinkana waa idin mahad celinaynaa aad iyo aad baan u mahadsantihiin soo dhawaada nabadana waa midnimo farxadna inaan nagala soo qeybgashin kulanka nabadeed oo ciidda lagu qaaday ciiddii u dambeysay baa lagu qaaday ama caqabadii ugu dambeysay wax badan waxaa tirsaaqaatay gobolaha laga shaqeeyo maanta miraheeda waan guranaynaa oo meeshii u dambeysay ay maraysaa taas waa midda kale dadweynahana waxaa leedahay hadda maanta waa in laysu sii jiro ciiddii la qaaday inaan wixii hore dhan soo dhaafnay inay meeshii u dambeysay marayso gaariga tugtaahuyo inaan ka noqon horey ha u riixno. mas-uuliyiintii ka hadashay waxaa ka mid ah taliyaasha ciidamada isku dhafka ah iyo sidoo kale saraakiisha labada dhinac Puntland iyo Galmudug. waxaan aad celinaynaa madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland ahna gudoomiyaha golaha iskaashiga dowlad goboleedyada aqbalaadda uu naga aqbalay iyo waqtiga uu geliyey isku furidda iyo isdhexgalka bulshada mudane madaxweyne mar labaad mar saddexaad waa ku hambalyeynaa soomaalinimada mas-uuliyadda aad muujisay waxaan kaloo doonaynaa inaan u hambaliyo dhammaan intii nagala shaqaysay annaga ka military ahaan amaawiirta taliyaha xoogga dalka Soomaaliyeed jenaraal cabdiweli jaamac gorod na siiyey ayaan qaadanay sidoo kale amaawiirta labada madaxweyne dowlad goboleed sidoo kale waxaan qaadanay talada iyo tusaalaha maamulka heer gobol heer degmo dhaqanka waxgaradka culummada oo dhammaantood doonaya. ugu dambeyntii madaxweynaha Puntland Cabduuli Maxamed Cali Gaas ayaa saxaafadda kula hadlay bartamaha suuqa waxa uuna sheegay madaxweynuhu in xal waara laga gaaray colaadii suuqa ee dhowr mar ku soo laabatay. wanaag badan baa ii muuqda sharaf bayna noo tahay inaan halkan maanta bartamihii suuqa Gaalkacyo isugu nimaadno caqabadihii u dambeeyay oo taagnaa oo ahaa ciidda la dhoobay iyo kala xirnaanta ganacsiga in aanu dhammaystirno shaqada ay bilaabeen madaxweyne Xaaf iyo jenaraal Cabdiweli Jaamac Gorod iyo janarada halkan nala taagan iyo maamulka degmo laba Gaalkacyo iyo gudoomiyaasha gobolada dhammaantood aad bay u mahadsan yihiin shaqo fiican bay bilaabeen dhammaystirkii way waxaan meesha anigu maanta u jooga dad badan oo sama jeclaa ayaa hawshan ka qayb qaatay ugu horreeyna odayaashii ganacsada oo nooga yimid xamar oo hadda imaan jiiro nagala joogo waxaan rajaynayaa cid walbaaba in ay wanaaggaas ka qayb qaadato in nin ganacsada ah oo raba inuu baqaarkiisa iibsado oo isaanad raadinaya iyo ribx raadinaya haddana ay u taalla ciid iyo tarajo ay u taallay de sax maaha caqli runtii aanu aanan garan karin weeye waxaan rabnaa marka
maaha keliya suuqaan taagannahay meel kasta iyo jid kasta oo gaalkacyo oo xiran waxaa rabaa amarka waxaa weye in la furo maamulka degmada iyo gobolka iyo ciidamadu amar bay u qabaan inay furaan cidna aan loo tixgelin cidna aan laga xishoonin ciddii caqabad ku noqota nabadgelyada iyo horumarka gaalkacyo gacan bir in lagu qabto ciidankii booliiska labada dhinac sudafka waa joogaa halkana waa joogaa xaggana waa joogaa ciidanka militariga meesha degraayn waa u astaynay waxaan rabnaa in lala shaqeeyo oo la garab qabto oo lagu taageero nabadda ay ka shaqeynayaan waxaa laga shaqeynayaa waa horumarkiina waa ganacsigiina waa ilmihiina inay iskuul nabad ku dhigtaan waxaa weeye inay horumar hesho gaalkacyo nabad ay hesho nabad la'aan horumar la gaari maayo gaalkacyo waxaan rabaa marka in caqli ku soo laabtaan in carriyadu shaqaysaan waa ku mahadsan yihiin runtii waxaa ii muuqda maamul wanaagsan oo shaqaynaya guddoomiyaal degmo xasan xuseen oo shaqaynaya guddoomiyaal gobol oo shaqaynaya saraakiil ciidan oo shaqaynaysa niyad haysa waxaan rabaa doorkiinii baa marka shacabka gaalkacyo ka qayb qaata nabadda taageera horumarka ka shaqeeya amni iyo walaaltinimo iyo ehelnimo ku wada noolaada kala guuri maysaan nabad ku wada noolaada dhaqan wanaagsan ku wada noolaada is-ixtiraama ma garatay suuqu waa furan yahay amarka cusmaan bixiyey waxaa weeye ciid danba oonaysaana ma jirto ciddii la timaadana gacan baa furan suuqani waa suuqa kaliya ee gobolka mudug ku yaala ee ganacsatada labada dhinac ee Puntland iyo Galmudug ay ku ganacsadaan si wada jir ah xasan cabdiraxmaan aadan telefishinka caalamiga Kalsan bartamaha suuqa magaalada Gaalkacyo guddiga kumeel gaarka ee doorashooyinka Puntland ayaa kordhiyay muddadii isdiiwaangelinta ee ururada siyaasadda warbixin umurta ku saabsan waxa magaalada Garowe inooga soo diray wariyahayaga Cabdiqani Fantastic guddiga kumeel gaarka ah ee doorashooyinka dawladda Puntland ayaa maanta shir saxaafadeed ku qabtay magaalada Garowe shir saxaafadeedkan oo ay ku sheegeen in muddo bil lagu kordhiyay xilliga isdiiwaangelinta nidaamka xisbiyada badan kadib markii dhamaatay muddadii loo asteeyay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka dawladda Puntland Maxamed Axmed Barre oo warbaahinta u akhriyay war saxaafadeedkan ayaa sheegay in muddo bil lagu kordhiyay sidoo kale gudoomiyuhu waxa uu sheegay in iyo haatan inay soo diiwaangeliyeen 4 urur siyaasadeed oo kaliya guddiga doorashooyinka kumeel gaarka ah ee Puntland Tibek xafiiska dhexe ee Garowe war saxaafadeed kadib markii guddigu dhageystay codsiyo badan oo istaba jooga oo uga kala yimi siyaasiyiinta daneeya ururada siyaasadda iyo dadweynaha Puntland guddigu markuu arkay in waqtiga diiwaangelinta iyo qabashada codsiyada ururada siyaasadeed uu dhamaaday kuna ekaa 31 bishii 12/2017 haddaba maanta oo ay taariikhdu tahay 3 Janaayo 2018 guddiga kumeel gaarka ee doorashooyinka Puntland waxa uu shacabka Puntland u soo gudbinayaa war saxaafadeedkan guddigu wuxuu garowsaday in ilaa hadda ay isdiiwaan geliyeen 4 urur siyaasadeed oo kala ah garsoor ummadda ubax iyo himilo 2 guddigu isagoo oo tixgelinaya geedi socodka nidaamka xisbiyada badan ee Puntland wuxuu go'aan ku gaaray in fursado dheeraad ah la siiyo daneeyaasha siyaasadda Puntland sidaa darteed guddigu wuxuu go'aansaday inuu waqtiga diiwaangelinta ku daro muddo 1 bil ah oo ka bilaabanaysa 3 Janaayo 2018 kuna eeg 3 Febraayo 2018 lambar 3 guddigu wuxuu dhiirigelinayaa ururadii horay u furtay isu diiwaan geliyay in ay soo dhamaystiraan shuruudaha looga baahan yahay sidoo kale guddigu wuxuu fursad siinayaa siyaasiyiinta danaysa in ay ururo siyaasadeed furtaan lambar 4 guddigu waxa uu ku wargelinayaa ururada siyaasadda Puntland ee isdiiwaan geliyay iyo kuwa doonaya inay isdiiwaan geliyaanba 28 Febraayo 2018 guddigu bilaabi doono in uu hubiyo in shuruudaha siyaasadda ee isdiiwaan geliyay ururada siyaasadda ee isdiiwaan geliyay ay buuxiyeen shuruudihii sharci ee looga baahnaa lambar 5 ururada siyaasadda ee isdiiwaan geliyay in guddigu ku casumay
tobanka bisha koowaad 2018 kulan isbarasho iyo xog waraysi ah. kulankan waxa uu ka dhici doonaa xarunta dhexe ee guddiga xafiiskiisa guddiga kumeel gaarka ah ee Puntland magaalada Garowe saacadu marka ay tahay 9 subaxnimo. cabdiqani axmed maxamed cabdiqani fantastic Kalson TV Garowe. xarakada al-shabaab ayaa 5 ruux waxay ku fuliyeen dil. 5taas ruux ayaa waxay la cuskanayeen inay jawaasiis u ahaayeen dawladaha kale ah Kenya iyo waliba Ethiopia. sida warbixintani oo nooga soo diray wariyahayaga Sharma Arke Maxamuud Xuseen. al-shabaab ayaa 5 ruux waxay ku dileen deegaanka Kuntuwaare ee gobolka Shabeellada Hoose waxaana rag ay dileen al-shabaab ay ku eedeeyeen in basaas ay u haayeen dawladaha Kenya, Ethiopia iyo sidoo kale dawladda federaalka Soomaaliya. fagaara ku yaala deegaanka Kuntuwaare oo al-shabaab dadka ku nool deegaankaasi ay isugu keeneen ayuu ku toogteen 5 nin oo ay ku eedeeyeen in basaasin waqti dheer ay u haayeen dawladaha Kenya, Ethiopia iyo sidoo kale dawladda Soomaaliya. al-shabaab ayaa soo bandhigay magacyada raggan waxaana ay ku sheegeen in dadka ay dileen uu ku jiro Cabdi Qaadir Cumar Xasan oo ay ku sheegeen daadiisa 23 isla markaana ay ku eedeeyeen inuu la shaqeynayo maamulka degmada Qoryoole ee gobolka Shabeellada Hoose. sidoo kale al-shabaab waxa ay dileen sida ay sheegeen Cabdi Qaadir Shugri Xasan oo ay ku sheegeen daadiisa 30 jir isla markaana la shaqeynaya sirdoonka dawladda federaalka Soomaaliya. al-shabaab dadka ay soo bandhigeen magacyadooda ee toogashada ay ku dileen waxa ku jira Maxamed Abshir Cali oo daadiisu ay ku sheegeen 35 jir isla markaana la shaqeynaya ciidanka Ethiopia ee ka howlgalaya gobolada Bay iyo Bakool. al-shabaab waxa sidoo kale ay soo bandhigeen magaca Cali Axmed Sheekh oo ay ku sheegeen inuu ahaa nin la shaqeynaya sirdoonka dawladda federaalka Soomaaliya. ninka shanaad ee al-shabaab magaciisa ay soo bandhigeen waxay ku sheegeen Cali Yuusuf Axmed oo ay u yaqaaneen Jacfar Dheere isla markaana daadiisu ahayd 36 sano jir waxaana ay ku eedeeyeen inuu la shaqeynayo dawladda waddanka Kenya. al-shabaab ayaa waxaa toogasho sidaan oo kale ay ka fuliyeen meelo badan oo kamid ah gobolada dalka oo gacanta ay ku hayaan waxaana shabaabku dadka badi ay toogashada ku dilaan ay ku eedeeyaan inay yihiin sirdoonno la shaqeynaya dawladaha shisheeye iyo sidoo kale dawladda federaalka Soomaaliya. Sharmaake Maxamuud Xuseen, Kalson TV, Muqdisho. Ra'iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya ayaa sheegay inaysan si sharci ah ku joogin ciidamada markaasi ilaaliya safaaradaha magaalada Muqdisho ku yaala isla mar ahaantaasna dawladaha shisheeye laga leeyahay. warbixin umurta ku saabsan waxa inoo faahfaahinaya wariyahayaga Cabdirasaaq Aadan Qoslaaye. ra'iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee Soomaaliya Ridwaan Xirsi Maxamed oo la hadlay Kalson TV ayaa waxa uu sheegay in ciidamada ku sugan magaalada Muqdisho ee aan ka tirsanayn howlgalka AMISOM in aysan sharci ku joogin gudaha magaalada Muqdisho. Ridwaan Xirsi ayaa hoosta ka hariiqay in ammaanka Muqdisho ay ka mas'uul yihiin ciidamada qaranka. ciidamada aan ka tirsanayn howlgalka AMISOM ayaa Muqdisho ku soo galay in ay yihiin ilaalada safaaradahooda waxaana ka mid ah ciidamadaasi dalalka Mareykanka, Turkiga, Imaaraadka, Talyaaniga iyo kuwa kale. waxaadna arkaysaa markaad dhex marto gudaha magaalada Muqdisho gawaari gaashaaman oo uu ka dulbabanayo calanka wadamadaasi. waxa uu sheegay in ciidamo aan la soo marsin baarlamaanka Soomaaliya in aysan ahayn kuwa sharci ku jooga magaalada Muqdisho. ciidamo Afrikaana oo dawladaha dariska qaar ay iyaguna ay runtii ku jiraan iyo ciidamo kale oo caalami oo runtii dibadda ka yimi oo qaabab kala duwan iyo sistemyo kala duwan runtii dalka ku soo galay. sida saxda ah waxaan aaminsanahay inta badan ama dal kasta oo ciidan ku keena ama dal kasta oo maanta Soomaaliya oo ciidan ka joogo waxa isaga laftiisu uu ka leeyahay danihiisa gaarka dambay ayay intooda badan u yimaadaan dhahdo intooda badan waxay fushanayaan dana iyagu ay leeyihiin waana laga yaabaa dabcan Soomaaliyana inay caawiyaan inay ay tahay inaga sidaan ka rabno oo aan doonayno marka sida caafimaadka qabtay saxdi waxa dalka waxyaabahaas inay ka baxaan dhamaantood ugu dambeyn ciidamada ajnabiga dalka inay ka baxaan way laakiin waa goorma waxaan u baahanay inaan gacanteena ku hanano nabadgelyadeena iyo amnigeena oo loo baahan yahay in aan ugu horeyn la dhiso ciidankii Soomaaliyeed difaaci lahaa dalka ciidamada amniga kala duwan oo ay tahay amniga gudaha runtii inay gacanta ku qabtaan ka shaqeeyaan dib badan bay abuurtay in ciidamada ajnabiga fara badan oo kala duwan dalka ay joogaan oo muxuu ahaa waxay u xudhimaysaa qarannimadeennii waa arrin u xudhimaysa weeye maadaama laga yaabo dalalka qaarkood oo dawladahaas ka mid ah in iyaguna dana gaara ay rabaan runtii dalka inay ka fushadaan waxa kaloo iyaduna dib xoog la ah oo aan anigu cabsi weyn ka qabaa inay bilaabanto dalalka Soomaaliya danta kale raba inay danahooda ay runtii ay fuliyaan
inay ku hirdamaan oo isku dhac uu ka yimaado siyaasadaha iyagu ay dowlad ahaan ay ku kala duwan yihiin waxaan ka shaqaynaynaa saamaynta ay dowladahaas leeyihiin guud ahaan in la yareeyo weyn waa inuu jiraa sharci xakamaynaya iyo korsocod baarlamaanka korsocod buu leeyahay aqalka sare korsocod oo labada aqal baarlamaanka korsocod bay leeyihiin hay-adaha kale dalku waxay la xisaabtan ayay leeyihiin marka waa inaan ku kontaroolnaa dowladahaasi inaanay ka gudbin heshiiskii lala galay ama xadkii loogu talagalay qiyaastii ku dhowaad ilaa iyo 15,000 oo qoys oo barakacyaal ah isla markaana deegaansanayay deegaanka Dareedishe ee dowladka magaalada Muqdisho ayaa waxa soo wajahay hoy la'aan kadib markii ay barakaciyeen ciidamo ka amal qaata maamulka degmada Kaxda ee gobolka Banaadir qaar ka mid ah qoysaskaasi ayaa la hadlay TV-ga Kalsan ana magaalada diiha sangay mangal ere yaalkan uni awlaadan rafaadni hungurlaangan hayt biilaangan hayt rafaadan tikroogna aqafahana gali agafa unaydoon iskuroogna guriyalkan burburiidi dada gurigaan burburiya askaranin koyta guriyaan burburan walaangna waaysan anta qahay baraka kaana eeda dibneen haysada awlaadana dhaxanga dhamaayahayta hungurina dhamaayahay anta roogna un gargaar fadaan ilaahay gargaar ku hale waa kay muslimo aanin gargaar eeda dhiban qabna un dhibmanin yar ana umada barakacday oo cagafta la galiyay 1500 oo qoys aan nahay 1500 hataa nalama dhihin waqti nalama qaban ka baxana lama dhihin cagaftii nagu jirta aragna waxaan caruurtii la kala baxnay guriyihii oo dhan raashinkii wixii yaroo ku dhex jiray oo xamaalka lagu keentay wixii oo dhan waa nalaga burburiyay ilaa janaale waxaan ka nimid ilaa iyo goboladaas oo dhan aan ka soo qaxnay isku jir baan nahay annaga dhan waa badannahay aan badnaanay saana naloo galo dawladda iyada saan inay noo gasho xaq ilaahay miya sawaw sacbinay farmaajo markuu soo galay habeenkii kabo xataa waa iga dhumeen haddana cagaf la geliyay ilaahay xaqiis miya Soomaaliya nahay muslim baan yuhuud say ula dhaqanto فلسطين بيحنا نلا دقمة إلهي حقيس مياه حق إلهي مياه نلقى سوقار مسلم هذانا نلقى سوقار بنان كاسان شيفنا عروسة يدي وطا ميلا وحكو كرسنا مالي بيلا وحكو عنا مالي بيه ما هيسنا بعد ما هيسنا كحدا دقنا هاي دتك كحدا لقى شبيه عقف كل قليان هاي إلهي الله قعبصنا نلقى سوقار عقف أنا قال شيء هذا الشيء قال ودلا تاجنا المين إنه واسكو قربا بعني ولا ليالو halin soo gaar guru ma haysana ani gurigeyga tira badan dad badan agafa gashi waxa ma hayna baada ma hayna biyo ma hayna baad ma hayna maanta lixdaan waa inta ka dambe baadayna da qaadana tuugsanana magaalada waa qarbadnaysa dad badan aan nahay walaalayaal halin soo gaar dadka mas'uulka ka dadka masaakiinta meesha joogan ahayn waxa